wasiirka wasaaradda hawlaha gudguriyeenta dhulka Soomaaliland mudane Cabdirashiid Qambi wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Muuse Diiriye maamulka gobolka Gabiley iyo ka degmada Togwajaale ayaa maanta si rasmi ah xadhiga uga jaray suuq cusub oo laga hirgeliyay guud ahaan magaalada ganacsiyeedka degmadaasi Togwajaale suuqan cusub ee maanta laga hirgeliyay degmada Togwajaale oo la yiraahdo Markaatawan ayaa isagu ahaa suuqa ugu weyn guud ahaan bagayga ay Soomaalidu degto waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay mulkiilaha moolkan maanta xadhiga inta xurmada loo dhanbaan u mahadnaqayaa ilaahay fadligiisa ragga maalgeliyay ee nala qabtay ee dhalinyarada u badan habliyo inamaba ee suuqa sida u qurxiyayna waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo Allah inoo barakeeyo amiga meesha wuxuu ku yimid markaa qaabkii magaalada Tobanka magaalada loo sameeyay waan arkaysaan oo magaalo qurux badan oo aad bilicda dadka u soo jeedinaysa ayaa ka bilaabantay halkan aad arkaysaan oo ahaan jirtay goobtii hotel loo jiray Golis imikana suuqa Markaata Golis oo labada magac aan ku lamaanaynay waana dareemi kartaan mujtamac fara badan ee ka helay shaqo abuurka sidoo kale wasiirka wasaaradda hawlaha guud wasiirka xigeenka arrimaha gudaha maamulka gobolka iyo ka degmada Togwajaale ayaa iyagu hoosta ka xariiqay inuu moolkan maanta laga hirgeliyay guud ahaanba degmadaasi Togwajaale uu yahay mool casri ah isla markaasina la jaan qaadi kara moolalka geeska Afrika waa sida ay sheegeen mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladoodii suuqa ugu weyn Addis Ababa Markaata la yiraahdo waa Markaata Togwajaale xafladan qiimaha badan leh ee aan hore uga dhicin Wajaale iyaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa waxa kale oo ballan qaadaynaa haddaan maanta ay gudoomiyaha Markaata suuqan inaan si sharaf loo shaqaysano si xikmad ku jirto u shaqaysano aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarta iyo ganacsatada iyo dadkii hantiilayaasha ahaa ee fikirkaasi fiican keenay suuqeena weyn maanta aad arkaysaan markii hore muu jirin waxaan ilaahay ka baryaynaa sida aad arkaysaan imiga inoo muuqata inuu ilaahay naga caymo kuftaa waa caadi laakiin halkaad ku kuftayna si fadhidaba ceeba oo go'aan soo saaray in Wajaale qorshe loo sameeyo si ay uga dhashaan midhaha aynu maanta arkana customerka iyo dadka wax ka iibsanayana ay runtii si fiican ula macaamilaan baan idinku boorinayaa wax kala fog oo maanta quruxda la sameeyay iyo tacabka la galiyay iyo cidda ka faa'iideysanaysa intaba ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay u barakeeyo qoyskii hawsha badan galiyay tacabka badan u huray iyagana waxay soo kordhiyeen wax qurux badan oo lagu daydo iyagana waxaan leenahay jazaakallahu aadna u mahadsantiin dekadii engegnayd ama dekadii bariga waanu dariiqyo ka saaro waxa midhihii ka soo baxay ka mid tahay suuqan inuu sidaa u egaado waxaan filayaa dhaartii hawshaanu bilaabaynay iyo maanta siday tahay inay aad u kala gedisan tahay waxa ilaahay loogu mahadnaqaa in dhismahan ama bacadlahan moolkan ay hirgeliyeen Saara iyo Saado iyo caa'iladoodu Khadar Cabdi Cabdillaahi degmada Togwajaale